بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المدود بلو dhegeysanaya waan u maleynaya wax kitaab wato mise mobilada laga fiirsanaya. Mobilada hadii laga fiirsanaya waa khayr wax. Ninka mobile ka fiirsanayna kitaab inuu soo qaataa fiican si uu maxaa la yiraahdaa insha Allah ta'ala oo 10ka si fiican uu la socdo. Suuradan waxa la yiraahdaa suurat al-hujurat. magaceedu suurat al-hujurat waa suurada 49aad tartiibka quraanka. waa suurada 49aad tartiibka quraanka. suuradan aayadaheedu waa 18 aayadood. 18 aayadood bay iyadoo dhan ka kooban tahay. waa suura madaniya ah, quraankii soo degay bacda al-hijra. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu hijrooday maka ka tegay magaalada madiinana uu xaruntii dowladdiisii uu ka aasaasay. waqtigaas ayay soo degtay oo fatradii madani marka waa suurad madani ah. inta waa isla fahmay. 49aad way tartiibkeeda, 18 aayadood weeye. isla markaa waxay kusoo degtay madiinay kusoo degtay. sanada ay soo degtay waxay ahayd sanadii sagaalaad ee hijriga bay soo degtay. yacni geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa ka dhiman? wax yaroo kooban baa ka dhiman. sanad iyo bilaa ka dhiman taqriiban, lianno sanadii 11aad bishii rabiic al-awwal buu nebiga geeriyooday calayhi salaatu wasalaam. suuraddanna waxay soo degtay sanadii 9aad ee hijriga. ayib, suuraddan mawduuca ay ka sheekeynayso iyo toobiga ay ku saabsan tahay waxaa weeyey mujtamacii madiina deganaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam dowladdiisii uu aasaasay, uu tarbiyeeyey, iyo ummaddii muslimkaa laba heer bay soo mareen. heer wuxuu ahaa heerkii maka la joogay oo diyaar garaynta iyo iimaan dhisidda iyobay ahayd. heerna waa heerkii dowladnimada iyo constitutionada iyo qawaaniinta iyo axkaamta dejinteedii. maadaama suuraddu suurad madani ay tahay, waa waqtigii waxaa weeye axkaamta la dejinayo. weliba waxay uga duwan tahay, waa waqti guushu ay muslimiinta heleen. dagaaladii carabta oo dhanna lasoo afjaray. jazaak allah khayr. dagaaladii carabta lagula jirayna lasoo afjaray. yahuud laga adkaaday, carabi laga adkaaday, islaamku dowladdiisu iyo xadaaradiisu ay cirka marayso. marxaladan astaan waxay leedahay waqtigii wufuudda iyo delegationada loo soo dirsanayay madiina. cid walba waxay tiri kula qalin daaro. ile markii la guulaysto cid walba guusha waa jecesha inay wax ka hesho, ka muuqato. cid walba wafdi bay soo dirsanaysa, ama iimaan ha usoo dirsato ama maslaxa iyo cabsi ha usoo dirsato, waxay doontaa ahaato. marxalad marka wufuuddu ay badan tahay oo magaaladii madiina qabaa'ilkii carbeed iyo ummad kala duwan ay soo degayaan.
marxaladaas waa marxalad waxaan oran karnaa marxalat al-infitaax waa marxalad lisku furfurayay ummadihii kale mujtamacaadkii iyo shucuubtii kale waa marxalad xadaaradii islaamku uu la tacaamulayay dadyow fog oo kusoo biirayo ama uu xiriir la samaysanayo marxaladda noocaasa marka waxaa qasab ah in xeerka dhaqanka iyo tacaamulka in si fiican loo dhuujiyo in si fiican loo adkeeyo in dadkii laga dhigo dad ka tarjumayo values iyo qiyam iyo mabaadi ay xambaarsan yihiin wamin hunaa ayaa suuraddu waxay daaweyn doontaa sawir waxaan idinka siinayaa xilligii ay soo degtay iyo wixii ku hareereysnaa si loo fahmo waxa ay daaweyn doonto waxay daaweyn doontaa adabka iyo akhlaaqda nala ka raba inaan kula dhaqanno allah caza wajalla waa kow labo aadaabta la doonaya inaan kula dhaqanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam aadaabta la doonayo muslimiinta dhexdoodu inay ku wada dhaqmaan ka muslimiin aadaabta iyo akhlaaqda la doonayo dadka cadowga ah ee dagaalka kugula jiro sideebaa loola dhaqmaa ma wax walbo dhan iyo akhlaaqdii iyo qiyamkii iyo valueska ma xaggaa la iska dhigi mase islaamku waxaa hagayo constitutionkiisu waa aadaabta iyo dhaqanka sidoo kale suuraddu waxay ka warrami doontaa si guud mujtamaca iyo bini aadanka xiriir noocee baa nagalaga dhexeeyo qaabkee baan ula tacaamulaynaa ayib suuraddu marka waxay ka hadli doontaa mujtamacaasi madiina iyo sidii dhaqankiisii uu dadka ula tacaamuli lahaa in lagu tarbiyeeyo suuraddu marka waa suurad akhlaaq waa suurad arrimaha bulshada iyo bulshadu siday isku haysan lahayd isku wadan lahayd ka sheekeynaysa wa dhinac kale markaad eegto suuradda khatimkeeda iyo gunaanadkeeda waxaad arki doontaa dabiicadii iyo najarkii uu u samaysnaa mujtamacii madiina oo ahaa qole alawaliina asaabiqiin abu bakr iyo cumar iyo asxaabu badrin iyo asxaabu baycat alcaqaba iyo baycat ridwaan iyo saxaabadii hore jiilkii hore ee rugcadaaga ahaa qoladaas iimaankoodii in la tilmaamo iyo qolo gadaalka soo gaar oo hadda kusoo biiray islaamkoodii iyo iimaankoodiina aan xoogaysanin waa aayadaha looga hadli doono qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna mujtamacii madiina oo laba mujtamac ah ama laba qaybood laba category loo qaybinayo qolada horena waxaa la odhan doonaa ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum makfiratun wa ajrun cadiim marka waa mujtamacii bulshada waa sida waxay isugu jiri doonaan dad ka run sheegay iimaankooda iyo dad iimaankoodu ulbooc waxaa weeye haddii sidaa loo sikiyo markiiba iimaankiisa uu khadka ka baxayo saasuu isugu jiraa suuraddu marka waa suuradda qiimaha badan ee duruuftaasi magaaladii madiine aan ka sheekeennay ka tarjumayso fahankaas wuxuu inagu dhalinayaa inaan si fiican suuradda aan ugu dhaqangelinno haddaan rabno bulsho muslima inaan noqonno ama bulsho muslim oo iyadii wada nool ama bulsho muslim oo la nool adduunka intiisa kale sheekh axmed dey soo dhawow maasha allah aadaan kugu faraxsanna maanta inaad timaaday ya baaraka allah fiik ilaahay caafimaad iyo cumri wanaagsan iyo daaca allah ku siiyo jazakum allah khayran baaraka allah fiik jazakum allah khayran aamiin aamiin kulligeen majzika khayran ayib suuraddu marka walaalayaal intaas haddaan hordhac uga dhignay waxaan baraarujin doonaa ustaad suhayb waa noo hagaajiyaan umalaynayaa filingaha soo ma linki baa jiri doono linkiga waxaa weeye waxaad soo dhigtay halkanba oo shaashadda ka saar qof walba linkigaas ha soo degsado ha dhowti ha ku dhufsado waxyaalaan isweydiin doonaa wixii laga fahmay suuradda marka mobilekaaga ka gal aidiyadaada nala wadaag marka yah collective thinking waa yah wada fakir wadareed iyo afkaar wadareed inaan isku darnaan rabnaa hadhowti marka linkiga halkaasu soo geliyey instagramka masaajidka filinga bistafi halkaas linkigaas meesha kasoo bixi doono shab ku dhufso markii aan weydiino qof walba ha diyaarsado haddaad diyaar tihiin waxaa weeyey markaan laqbada qeybta hore aan ka dhammaado baan idin weydiin doonaa su-aalaan ku bilaabi doonaa iyo inaan bal isla ogaano insha allah ayib bismi illaahi araxmaan iraxiim magaca ilaahay baan ku bilaabeynaa
bismi illaah magaca alle ayaan ku bilaabaynaa allaha arraxmaani naxariis guud naxariista ama ku tilmaaman naxariis waa sifa daatiye alraxiimi allaha naxariis gaar ahaaneyd mu'miniinta u naxariista ama allaha naxariistiisu ay bini aadanka iyo makhluuqaadka o dhan ay gaarto wax walba oo la bilaabayo magaca ilaahay baa lagu bilaabaa qur-aanka o dhanna waxaa weeyey waa wada bisinkaas marka laga reebo hal suurada suuratu baraa ayb yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyayo laa tuqadimuu ha kala hormarina bayna yaday illaahi alle hortiisa iyo wa rasuulihi rasuulka hortiisa hadal iyo qowl ha kala hormarinana talo aada soo jeediseenna ha keenina wattaqu llaha alle ka cabsada ina allaha alle samiicun waa alle maqal badan waxa aada ku qowlaysaan caliimun cilmi badanoo og waxa qalbigiina ku jira yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyayo laa tarfacuu saraha u qaadinina aswaatakum codkiina iyo sawdkiina fowqa sawti nnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama codkiisa si ka sarrayso kor ha ugu qaadinina walaa tajharuu ha la jahrinina oo kor ha u qaadinina lahu nebiga bilqowli hadal ka jahri bacdikum sida qaarkiin uu hadalka uu kor ugu qaado libacdin qaarka kale saad u wada hadashaan nebiga ha ula hadlina maxaa dhacay sababtu waa maxay an taxbata khashyata an taxbata inay burto baqid laga baqayo acmaalukum camalkiina inuu buro wa antum adinka oo laa tashcuruuna inan garanaynin adinkoon is ogeyn inuu camalkii idinka buro ina aladiina kuwa yaquduuna hoos u dhigaya aswaatahum sawdkooda iyo codkooda cinda rasuulillaahi rasuulka alle agtiisa markay joogaan kuwa codkooda hoos u dhigo ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye imtixana allaahu alle uu imtixaanay tijaabiyey tastigareeyey quluubahum qalbiyadooda litaqwaa alle kacabsigii baa lagu tijaabiyey wayna aqbashay wey quluubtoodii alle kacabsigii bay aqbaleen lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajar ajarkaasoo cadiimun oo weyn ina aladiina kuwa yunaaduunaka kuu dhawaaqaya nebi moxamed sal ly slam kuu yeeraya min waraa'i alxujuraati qolalka aada degan tahay gadaashooda kaaga dhawaaqaya oo kaaga yeeraya akharuhum badankooda laa yacqiluuna caqli ma laha walow annahum hadday iyagu sabaruu ay sabri lahaayeen dul qaadan lahaayeen xataa takhruja ilaa aada uga soo baxdo ilayhim iyaga lakaana sidaas baa khayran u fiicnaan lahayd lahum iyaga wallaahu allana gafuurun waa alle dembiyada dhaafa raxiimun oo naxariista ayib su-aashayda koowaad suuraddu waxaa ku jirto 5 dhawaaq yeerid oo yaa ayuhaa ku bilaabanayso waxaan rabaa iyadoo la isticmaalayo filingaha in aayadda numberkeeda aad sheegto aayadda numberkaas dhawaaq baa ku jiro numberka aayadda un baad soo qoraysaa 5 dhawaaq suuradda fiiri 5 dhawaaq 5 yeerid yaa ayuhaa ku bilaabanayso baa ku jirto yaa ayuhaa 5 dhawaaq baa ku jirto marka aayadahay ku jiraan nambarradoodaan rabaa aayadda 10aad miya tusaale ahaan aayadda 9aad miya aayadda 5aad miya aayad 5 iisoo qor ama 5 1 7 8 waxay tahay 5 dhawaaq baa suuradda ku jiro access ma kood buu ku weydiiyey linkiga un ku dhufo waa inaad gashaan su-aal baa idinla xalinaya qofkii
soo dirteen soo qoraysaan weli waxa ma haya halkan soo macalad baa jirta farsamo mase marka waa weli wax soo gala ma arka shaashada cabdiraxmaan haye anas soo dirtay soo qortay samee maada soo gelin miya hal qofa soo diray okay aayado number buu soo diray 1 iyo 2 iyo aayadda koowaad aayadda hala soo qoray yaa la raacin isaga waxa uu qoray qof walba isaga baaritaankiisa ha ku dhisto 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 uu soo qoray 1 2 3 4 5 aayadood buu soo qoray qofkan hadda soo qoray ahay qof kale ka duwan aayado kale uu soo qoray waa iskhilaafeen Soomaaliya labadan qof waa isdaba mareen ya aragtida dadka waa ka saas u kala duwan yihiin kitaabku idin hor yaala hal buubsiye laakiin linkiga wuxuu ku jiraa Instagram-ka masaajidka marka filinga bistafigas oo Instagram-ka masaajidka ku dhufto طيب saddex qof aan hayaa hadda ya maya waxaa weeye ma isdul saarihin mise anaa mooda kala siki waxyar gaabe bes okay suhayb gabdhaha waxaa umalaynaa maclad baa jirto mase waa hesheen ma hesheen linkiga ma la helay ayib haye aan isla eegno marka waa lala xarbinaya halala qabsado waxaa weeye maalmahan 3 maalmood intaan suuradda wadno nooc tafaaculi baan ka rabnaa insha allahu tacaala ayib aan isla eegno aayadda koowaad yaa ayuha aladiina ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu weliba waa dhawaaq war kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyayo baa la leeyahy waa midda uu cabdullahi ibn mascuud uu ku tilmaamay haddaad maqashay dhegta raarici ama wanaag baa lagu farayaa ama xumaan baa lagaa reebaya dhegta raarici dhegta fur yaa ayuha aladiina aamanuu adaa lagu dhawaaqay mu'min haddaad tahay cid kale looma socdo waa aayadda koowaad waa la isku waafaqay aayaddaas aayadda labaad sidoo kale waa la isku waafaqay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum dhawaaq kala ku jiro aayadda لحاد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق طبعا ساسا لو بدن أيضا آيات اللحاد حوى والسكوة وافقي رواق با كجرا كوا الله يا رسول كيسر ميو وآيات السدحات طيب آيات أفراد وآيات كوي تبناد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم هل كاسمر كدد با آيات وحي قرين سدحي تبناد يكوي تبناد iyo 12 baa la isugu khilaaf soo ma jeed tayib marka aayadda 12aad dhawaaq baa ku jiro oo mu'miniinta aayadda 5aad ee dhawaaqa uu ku jiro waa aayadda 13aad qolada 12 tiri markaas waxa weeye soo ayadana dhawaaq baa ku jiro yaa ayuha alladina aamanu tayib marka 500 hadda ma soo afar lix shanta hore waa dhawaaq mu'miniinta ku magacaaban waxaa loo yeerayaa mu'min yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyo tan u dambayso oo aayadda 13aada waa dhawaaq ku wajahan basharka oo dhan bini aadamka oo dhan muslimkooda iyo gaalkooda yaa ayuha annaas wardadow laakiin waxaa qariib ah waxyaalaha cajaa'ibka suuraddu ay leedahay suuraddu waa suura madaniya dhawaaqa yaa ayuha annaasna suuradaha makigay ku badantay suuradaha makiga baa yaa ayuha annaastu ay ku badantay walidalik yaa ayuha aladiina aamanuuda 5 jeer ay soo noqotay lianna mujtamacu waa mujtamac muslim waxaa lala hadlayo warka uu dhacayo dowladdii muslimkaa xoogeysatay laakiin haddana saasay tahay lama ignore garaynayo basharka intiisi kale waa loo dhawaaqayaa yaa ayuha annaas ayaa la leeyahay
maxaa yeelay waa mujtamacii xadaaradda islaamka istaagtay. xadaaradaasna waxay u baahan tahay inay tafaacul iyo interaction la samayso bulshooyinka kale. qaabkii marka ay tacaamulka u wada samayn lahaayeen ayaa dastuur iyo qaanuun laga soo saaray oo dadka loogu dhawaaqay litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. ayib, shantaas aayadood oo mu'miniinta ku wajahan iyo hal aayadood oo basharka iyo bini aadamka ku wajahan ayay suuraddu ka sheekaysay. aan dul istaagna aayadda koowaad, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih. kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyeyo ha kala hormarinina alle iyo rasuulkiisa hadal iyo ficil iyo tala soo jeedin midna. alle iyo rasuulkiisa ha ka hor dhicin, ha hor ordin. soomaalidii iyo fuqahadii waxay odhan jireen minhaaj lama hor ordo soo ma haa, alle iyo rasuulkiisa lama hor ordo. alle iyo rasuul minhaaj macnaha waxay ka wadaan mas'ale aa qabtay, mas'aladaas xukunkeeda maxaa waay hadhihin minhaajkaa soo wadawa saasay ka wadaan, lama hor ordo. alle iyo rasuulkiisa ha horboodin. xugun ma rabtaa iyo mas'ale inaad fahantid iyo waxaa muxuu islaamka ka yidhi, ha islaamku u qabaa, waxbuu ka yidhi, waxbuu ka sheegay. adiga raadi, sug, weydii. haddaadan aqoonina fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. marka laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulihi, ha hor ordina alle iyo rasuulkiisa, ha kala hormarinina hordhac iyo hadal. wattaqu llaha alle ka baqa. badiilka waa kana, alternativekana laka rabo inaan alle iyo rasuulkiisa horboodna maaha, inaan alle iyo rasuulkiisa ka cabsanno ayaana laka rabaa, oo cabsidaas inay nagu qaado warkooda inaan yeelno. kadibna alle wuxuu yidhi ina allaha samiicun, alle waa maqlayaa. haddaad hadlaysaan oo aad leedihiin wallaahi qur-aanka waxa uu sheegaya logic maaha, sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ku soo arooray caqli iyo mantiq ma aha, alle waa maqlayaa. haddaadan ku hadlinoo xataa niyadaada ay ka dhex guuxayso oo aada waswaassan tahay oo shaki iyo waswaas uu kugu jirana, alle waa caliim, waa ogyahay waxa qalbigaaga ka dhex guuxayo. waaclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruuhu. wey ogaada, alle waa ogyahay waxa qalbigiina iyo naftiina ku jira ee ka digtoonaada, iska ilaaliya. alle naxariistiisa ha ku kadsoomina, iska ilaaliya oo iska waxaa weeye ka joogsada. aayaddani sabanuzuul bay leedahay bay tilmaamaan culummada. sabanuzuulkeeda suuradoo dhan horta sabanuzuulkeeda wuxuu ku saabsan yahay niman wafdi ah oo reer bani tamiim la yidhaahdo oo magaaladii madiine yimid. nimanka markay yimaadeen waan goosgoosaan u sheegi doonaa. qeybta aayaddan khusayso markay yimaadeen ayaa nebiga waxaa la joogay abubakar iyo cumar iyo saxaabo kale. wafdiga waxaa ka mid ahaa niman magac ku dhex lahaa qabiilada iyo carab dhexdooda. waxaa ku jiray waxaa weeye alaqrac ibni xaabis iyo alqacqaac ibni camrin iyo rag badan oo waxaa ku jiray noocaasaa ku jiray. abubakar baa marka wuxuu yidhi yaa rasuula allah, waxaan arkaa inaad amiir uga dhigto alqacqaac ibni camr ama ibni macbad, ninkaas madax uga dhig nimankan. cumarna wuxuu yidhi maya, alaqrac ibni xaabis madax uga dhig. talay soo jeediyeen, abubakarna taluu dhiibtay, cumarna taluu keenay. cumar wuxuu yidhi anigon baad abubakar baa yidhi anigon baad ikhilaafaysa, khilaafkaygaad u socotaa. hadalkii baa ka taagtaagmay, hadalkii baa kor uga qaadmay. aayaadkan baa soo degay oo la leeyahay laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih. inaad degdegto oo xataa iqtiraax iyo suggestion iyo proposal iyo soo jeedin inaad keento waxaa ka horeysa inaad ka idan qaadato, aad tiraahdo wax ma soo jeedin karaa. shareecada eeg sida la rabo maqaamka adabta aan allah kula dhaqmayna iyo rasuulkiisa. laa tuqadimuu bayna yaday illahi, waxaa lagu canaantay abubakar iyo cumar tala yaray soo jeediyeen, ay xoogaha garab mareen idan qaadashadii iyo brotocoolkii iyo waddadii loo mari lahaa. intaasay khilaafeen. markaasaa aayaadkan kusoo degay oo lagu canaananaya laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih. maca annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam cid kala tashi badnayd ma jirin saxaabadiisa. tashigiisa aad buu u badnaa, intaas saxaabadiisa uu ka talagelin jiray oo waaba la amray washaawirhum fi lamri baa la yidhi, arrinta kala tasha oo ka talageli. walidaalika intaa wuu la tashan jiray
طيب إذن ومسألة عقدية ولا لا المسألة أقوه الرئيس آيدا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله باهي بدن بانو قبنا ظروف هدا أن كجرنا محايا لي وحاي نقول بدن وحسو جيدين تاس نوعية بدن بين هاي والله أنا وحنو أركا سدا إني كفي عنته والدين كإله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقوت على هور أردي إنا ترهدي عصريا أن كجرنا إسلامك وحو كشيكينا اسمك هذا كران لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هور أردي واقع معها وحن عقلك مقلي كرم منطق معها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أذبتاسا إنو تالو أذبتاسي أيا إنو تالو لدونيا إن كل قلنا آياتك لا حجيي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة هدو قال وحقو آميه رسول كان وحو أمر جيس مليهد هذا الكوما فرنا قف مؤمنة إيا قبر مؤمنة مدنا وحال الربائنا ندهنه سمعنا وأطعنا آياتها في سورة النور بان قياسة يعني هايين آيات ربي أتلمامي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله رسول كيسان رمين وانا أطعني ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إيجو أفك كشيكتي الله رسول كيسان رمين يطيعين بهدنا جيسانيان ولا وذي وحال يري حدين لوغو يارو الله رسول كيسان اللي يحكم بينهم إنه كلا حكميه ما إيمانيان لكن هدي أي دنتوضا إيا مصلحتوضا الدين ككدح أركان وإن يأتوا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هدي حق إيا قرت إليهين وإيمانيان إياقوه قانسا سوما أرق قولوا ده نيو الشريعة أنكو كالبحنا نوغي وذا إيا نوغي محكمة نأدي حوالها ماشي وحو كدح أرك وحبو سوحي وراما لغيابا لكن marka isaga ku foorarto waxa weeye nino naga daamaya masaajid iyo wadaad iyo maxaa la yiraahdaa wada waxaas jooji si kale ku kala baxno way kullahum alhaq yatu ilayhi mud'inin arinku rabbi su'aalu kana fi qulubihim marad ma qalbigooda jiran miyay shakiyeen oo shaki ba ku jiro mase waxay ka cabsanayaan an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu alla iyo rasuulkiisa inay sameeyaan ay cadaalad ka tagaan in cadaalad loo sameeyo waayo miyay ka baqeen markaas ay arinku sida ma bal ulaa'ika humuz zalimun iyaga zaalimiina markaas waxa laga cabiray muslimiinta inma kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaa'ika humul muflihun markii alla iyo rasuulkiisa loogu yeero sami'na wa ata'na wa muslimin ولذلك ولا ليال مسألة ومسألة مهمة إن أن برارك سنانه قرآن كاسدا الشيء رسول كاسدا يري صلى الله عليه وسلم وخط أحمر كما فرنا مرن ولذلك سحابة رقم كودي ونكسنا ننكي سحابي الحباب بن المنذر غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كيسي مركو كحيستي ميل بودجيي حباب بن المنذر بقول يا رسول الله ماشاني ما وحي باكو أمري إنا دكتو القرآن باكو سو دغايو ملك جبريل باكو وحيوده إنا هلكان دكتو ما سي أرنكو تلاقي الرأي وكفرا بل صحابيغا عقليgiisa iyo cilmigiisa iyo fiqigiisa markaas nabiga wuxuu yiri maya waxa weeyay waa un talo un ba iga noqotay talada sidan iga noqotay arin diimeed ma aha waa arin adduunyo markaas uu ku yiri ya rasuulallah hada laysa bimawqi' meeshan meel istaraatiijiga ma aha meel degan ma aha waa meel halis ah marka la eego strategic planka ciidanka ay ku shaqeeyaan meeshan meel la degan ma aha markaas uu ka raray ciidanka laakiin waa goorme marka la yiri waxani waxa weeye hadal baa ka furan quraan kuma soo aroorin sunnah nabina kuma soo aroorin idan qodobku walaalayaal taas way mid loo baahan yahay markii Umar radiyallahu anhu ay soo dageen aayaadkii khamriga fajtanibuhu la'allakum tuflihun intahayna ya rasuulallah buu ilaahu waan ka harnay waan ka joogsanay ayuu yiri waana sida nala ka rabo walaalayaal waxaan rabaa inaan iraahdo arinku rabbi subhanahu wa ta'ala wattaqullah buu ku xiri war ilaahay ka baqa maxaa yeelay qofka alla ka cabsiga uu ku jiro waa qofka shacaa'irta ilaahay weyneeyay dalika wa man yu'azzim sha'aa'ir Allah fa innaha min taqwa alqulub qalbiga
وحوي تقوديس وحكمده آياتك إلهي iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay nugu weynaato oo maqaam agteena ay ku leedahay aysan tala iyo markaa midna aysan ka furnaanin waxaa lagu khatimay inna allaha samiicun caliim alla waa idin maqlaya waxaad ku qowlaysaan haddaad keligaa tahay haddaad tiim la joogto waa caliim oo xataa haddaad aamusto laakiin qalbigaaga uu wax ka dhex guuxayo alla waa ogyahay waana la socdaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alla iyo rasuul rumeeyey oo laa tarfacuu saraha u qaadinina aswaatakum codkiina fowqa sawti nabiyi nebiga codkiisa meel ka sarrayso codka nebiga cod ka sarreeya ha ku dhawaaqina maxaa yeelay xurmaa la rabaa ixtiraamkii wey walaa tajharuu lahu bilqowl hadalkana kor ha ugu qaadinina nebiga ka jahri bacdikum libacdin qaarkiin qaarka kale sida aad hadalka kor ugu qaadaan hebelow hebelow isagoo xaggaa joogaad u dhawaaqi war hebelow heblaayoy sidaas ha isdhihina آيات كلا كسو أرورتي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يريتان كالنبي قاد أولا واقيسان سيدة قاركينة بسقوطة واقلان هنا وحال الربا إلا يرهدو نبي عليه الصلاة والسلام وينية وأدب مع الله مع الرسول وينية وعظمتي سئي قدرتي سئي شرفتي سقرواق صدا ومركات أولا واقيسان يا أيها النبي يا أيها الرسول لها قرآنك nebiga marka loo dhawaaqayay ma soo arkaysid iyadoo la leeyahay yaa Muhammad quraanka yaa Muhammad ma ku jirtaa laakiin magaciisa oo si kale looga warbixinayaa ku jiro wama Muhammadun illa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa warbixin ba socoto iyo Muhammadur rasuulullah walladina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffar laakiin dhawaaqid yeerid markay timaado yaa ayyuha al-muddaththir yaa ayyuha al-muzammil يا أيها النبي يا أيها الرسول سو مجدي وحسب كسو أروري بينما الله عز وجل أنبياء ذكروا أن مقعيض وقود واقي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا سو ما هين يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدال ما آياتك له تكلا جرتي يضنا يا نوح وهكذا marka nidaa badan oo magacooda kali anbiyada loogu yeeray baa quraanka ku jirta laakiin nabi maxamed waa la diiday maxamed kali hadhiin yaa rasuul allah marka loo yeerayo oo loo dhawaaqayo waxa way ka jahri bacdikum li bacdin sababtu waa maxay an tahbata a'malukum amalkiina inuu bura laga baqaya adinkoon is ogeyn wa antum la tash'urun qofku waxa dhacda isagoon is ogeyn oo isleh wallahi waxba ku fiican waxba ku hagaagsan inuu hadana amalkiisa burayo inuu gaalnimo iyo wadaxun ku sii socdo ismana ogow khayr doon baa ka saari mayso marka igamana saarayso waxa la doonayaa qofka marka inuu baqo ayada walaalayaal waxa weeyay iyaduna waxa weeyay waxay leedahay sabab nuzulki hadda aan tilmaamayna Abu Bakar iyo Umar radiyallahu anhum codkii baa ka taagmay anaad iidan leedahay iyo kuma dallihi taladeeda maxaa kala uga daba keentay saxaabadii malaa'ig ma ahayn wala isqaban jireen laakiin waa soo noqon jireen quraankaas ku soo degay war nabigaad ag joogtaan codkiinana waa sareeyaa waa taagan yahay hayeelinina waxay kale ku soo degtay nimankii reer bani tamiim waan u tagi doonaa aayada ka dambayso in ugu imaan doonto oo iyagana codkoodii uu aad u taagnaa waliba iyagu waxay ku sii dareen yaa Muhammad war Muhammadow يا رسول الله مجرت وأنا من عصبه هذا الدين كسوق علي آدابتي بروتوكولكي واحد بدن بعد من ومد أن لا هاي صحابة ولا بدأ خانات بكوك الجرينو السابقين الأولون إيوه محاوي مسلمي فتح مكة إيوه دتك جدال كسو إسلامي نبينا عليه الصلاة والسلام وسيدي من ربا طيب ما هذا عمرك عنانتنا سودك تيو ولا لي هاي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كرها أقادنين ووحن باهي يدن لو قبين لكن هدي باهي لو قبه عدك كروا لو قادن النبي أوجوج عليه الصلاة والسلام سيدا آذانكو كله أرحنا بها يا بلال قفكم مركو أدمة ما وصبوا أدمة عدار الجوهري وكو أدمة نداجة مركو قفك خد بينه كلمة مركو جيدينه ساسو كله وحويه مركاسو كله ولا أقولي لكن وحي أنا الحاجة الظروف لهين عدك كرها أقادنين أيا ليل طيب arrinkani waxay leedahay qiso kale aayadani oo ahayd Thabit ibn Qays ibn Shammas saxaabiga jaliilka
aayadan buu maqlay wuxuuna ahaa nin cod dheer buu ahaa jawhariya sawt wuxuuna ahaa khatiib buu ahaa mufawah ah codkar ah buu ahaa qisadiisa isla suuraddani haddana mar kale noogu imaan doonta isagoo khudbaynaya uu nebiga amri doono uu dhihi doono khudbee markuu aayaddan maqlay guriguu isku soo xiray oo hin buu jabsaday waa waayey nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii haabit aha awe haddii la raadiyey waa loo cidiray guriguu ku jiraa war maxaa ku helay haabit ibni qaysow wuxuu yidhi aayaddan baa soo degtay oo camalkaygii waa buray ahlu naar baan noqday hal aayada oo dadkoo dhan ku socoto baa wax ka beddeshay oo saameyn ku samaysay innaguna maantao dhan qur-aanka waan akhrinaynaa markaasaa waxaa laga yaabaa qur-aanku inuu cid kale kaanamaa la hadlayo ya qur-aanku inuu saxaabo la hadlayo aqwaamtii hore ka sheekeynayo oo innaga iyo duruufteenna iyo xaaladeennaba inuusan shuqul ku lahayn baad moodaa nebiga wuxuu ku yeeriyey ugu bishaareeya waa ahlu janne ka mid maaha isaga shahaada ilaahay baa taskiyeeyey isagoo la taskiyeeyo ahlu janno ah oo dadkaas aan ka mid ahayn camalkooda burayo ayuu haddana isaga baqay inuu camalkiisa burayo innaguna hadda waxaan moodaynaa waa isla tootoosannahay oo haddaan xoogaha masaajidka soo galno oo waxoogaha ay diin naga muuqato oo gabdhuhu xijaab ka muuqdo inaan waxaa weye khalaas khadka goynay baan u malaynaa suuradda dhammaadkeedii noogu imaan doontaa yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum hanagu galladaysan inuu leeyahy alle subxaanahu wa tacaala islaamnimadiinna iyo saad u hagaagteen ilaahay baa idinku galladaysay oo idinku manna sheeganayo inuu idinku soo hanuuniyey islaamnimada idan aayaddu qisadaas kalena way leedahay ayib aayadda saddexaad aan galno walaalayaal ina aladiina kuwa yaquduuna hoos u dhigaya aswaatahum codkooda cinda rasuuli illah rasuulka alle agtiisa sal ly slam ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye imtixana allahu quluubahum alle qalbigooda uu tijaabiyey imtixaan baa la geliyey litaqwaa taqwadaana lagu tijaabiyey markaasi imtixaankii ka baramooseen qalbigoodiina alle kacabsigii iyo taqwadii buu aqbalay wa maxay leeyihiin oo abaalguda lahum makfira waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo wa ajrun cadiim ajar weynna waa leeyihin ajar weynna way leeyihin ayib aayaddan waxaa weeyey iyaduna waa taskiya la taskiyeynayo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan abubakar iyo cumar oo aayaddii hore ay ku soo degtay markii ay soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy markiiba way dhaqan geliyeen qur-aankana way ku saamoobeen abubakar wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah wallahi laa ukalimuka ilaa ka akhi siraar aw ka akhi siraar kula hadli maayo oo wax kuu sheegi maayo ilaa midka wax kugu siraysanayo qof wax sir ah kuu sheegayo sidee buu u hadlaa hoosu hadalka u dhigaa sooma saasoo kalean kuula hadli buu yidhi dhaqankiisii automatic waa bedelay wallahi waa cod dheerahay iyo waana abuur baa ka horreysay iyo see yeelaa iyo shakaas ma jirto markiiba waxaa la rabaa inaad adiga isbedesho leanna islaamku muxuu u yimid dhaqankeenna iyo inuu bedelo walaalayaal soomaali haddaan nahay cod dheerarka horta waa ku ibtilaysana bal ogaada waa magaalo xuma joognimada rag iyo dumarba waana waxyaalaha naloo kaga cawdo wey tareen baa la saaran yahay hadduu nin soomaaliya uu ku jiro ama haweeney soomaaliyada ay ku jirto waxaa weeye waa la dareemaya guuxa iyo codka iyo telefoonka yeerayo ya haddii diyaarad la saar haddii waddo la marayo war waxaan waxoogaha si ha laga bedelo ina ankara alaswaati la sawt alxamiir waxaa weeyey waa luqmaan alxakiim markii uu talada iyo tusaaleynta iyo waanada wiilkiisa uu siinayey waqdud min sawtik codkaaga hoos u dhig maxaa yeelay codadka la necbaysto waa codka dameerkae qaaqdaas ku hayo qof weyn oo tukado oo muslima oo soomaali ah inuu qaaqla noqdo arrin garab ma ah waxaa weeye bal xadaaradaas waxoogaa aan wax ka bedelno magaalo cuma joognimada nala ku xantay ka mid tahay ya nin weyn xantiisa waxaa weye ma mooganaa la yidhi dhammaanteen waa ku wada jirnaa marka bal waxoogaha aan insha allahu tacaala aan dadaalna intii tabara marka aayaddu waxay kusoo degtay abubakar iyo cumar labadiiba iyo saxaabadii kaleba wax way ka bedeleenoo markaasaa waxaa weeye alla waa ammaanayoo imtixaan baa la mariyey imtixana allahu quluubahum qalbigoodaa la imtixaanay qofka muslimkana waa la imtixaanaa lagaa yeeli maayo muslim baan ahay axasiba annaasu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun waa la isfitnaynaya markii la imtixaanay imtixaankii way ka baramooseen imtixaanna waxaa lagu yaqaanaa dadna waa dhacaan dadna waa baasaan saxaabada nebiga waa ka baaseen imtixaankii
halkaa waxaa sidoo kale la tilmaamayaa qalbiga maxalla taqwa waa qalbiga imtixana allahu quluubahum litaqwa wa meesha uu nabiga yidhi attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna wayushiiru ilaa sadri alla kacabsiga waa halkaa alla kacabsiga waa halkaa qalbigiisa ayuu tilmaamayay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ayib walidalik aayaddan cumar waa dhaqan geliyey wuxuu arkay xilligiisii markuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam laba nin oo codka kor u qaadaya qabriga nebiga agtiisa iyo rawdadii iyo xujradii nebiga uu ku aasnaa codkooda kor u qaadqaaday markaasuu u yeeray wuxuu yidhi xaggeed ka timaadeen ma reer beledkaa tihiin magaalada madiina dadkeedii maad ka mid tihiin markaasay yidhahdeen maya waa cusubnahay soo galooti hadda cusub haddaan koynayo haye wuxuu yidhi haddaad reer beledka ahaan lahaydeen waan idin ciqaabi lahaa waana idin xanuunjin lahaa sidee baad ku keenteen nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa inaad codka kor u qaadaan iyadoo la yidhi laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiyi walidalika walaalayaal cayaalka insha allahu gadaalha ha ku cayaaraan hala yidhaahdo baaraka allah fiikum ayib wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha uu ku aasan yahay sideebaad codka kor ugu qaadaysaan arrinkaasna aad buu waa maxay u diiday abubakar cumar radia allahu canhu bal wuxuu yidhi waa idin ciqaabi lahaa dadku waxaa dhacday hadda waa la cumraystaa cumraa la aadaa xaj baa la aadaa aadaa la isaga ilaaliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa iyo meeshuu ku aasan yahay marka la marayo waa in codka hoos aad u dhigtaa aayaddanna inaan dhaqan gelinno ay tahay waa ixtiraamkiisii iyo qadarintiisii haddii uu noolaana waa mudan haddii uu geeriyoodayna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waa mudan yahay ayb lahum makfiratun wa ajrun cadiim waxaa u sugnaaday markaas dembi dhaaf iyo waa maxay ajar weyn ayaa u sugnaaday aayadda afaraad baan gelaynaa ina aladiina yunaaduunaka kuwa kuu dhawaaqaya oo kuu yeerayo nabi maxamed sal ly slam min waraa'i alxujuraat qolalka gadaashooda kaaga dhawaaqaya akharuhum badankooda laa yacqiluuna caqli ma laha walow annahum iyagu hadday sabaruu sabri lahaayeen oy dulqaadan lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aada uga soo baxdo lakaana khayran lahum sidaasaa u fiicnaan lahayd wallaahu allana gafuurun waa alla dembiyada dhaafo raxiimun oo naxariista aayaddan walaalayaal waxay ku soo degtay qisadii aan tilmaamnay oo suuraddaba ay ku socoto oo keentay abubakar iyo cumar xataa codkooda inuu ka taagtaagmo nimankii reer bani tamiim bay kusoo degtay ee wafdiga ahaa waxay tilmaamaan ilaa 7 nin ayay ahaayeen 70 qaar 90 nin bay ahaayeen bay tilmaamayaan wafdi culus buu ahaa waxa weeye cuyaynata bni muxsin iyo alaqrac ibni xaabis iyo qays ibni caasim iyo alqacqaac ibni camrin saxaabo badan oo magac ku leh waxa weeye dhacdooyin laga wariyay axaadiista ay ku jiraan baa ka mid ahaa oo intuu islaamkoodii xoogeystay dad caqli iyo ra'yi iyo xikmad iyo karam iyo intaba u saaxiib ahaa markay nebiga u yimaadeen dee ummad lagama waayo ummadoo dhan ma wada fiicna qaar waa laga helayaa waxoogaha yaroo waxa weeye khaladaad ay ka dhacayaan malaa'ig maaha ilen basharku waa bini aadan saxaabadu waa bini aadan qaar baa marka codkii ka taagtaagmayo nebiga calayhi salaatu wasalaam bay masaajidkiisa yimaadeen guryihii nebiga oo masaajidka ku dhegan dhinaca waxa weeye bari ka xiga ayay soo ag istaageen guriga uu ku jiro ma garanayaan 9 guri waay markaa 9 guri weye marka min waraa'i alxujuraat guriga gadaashiisa miduu ku jiro ma yaqaanaan bay ka dhawaaqayaan yaa muxamed ukhruj lana yaa muxamedoo noo soo bax bay leeyihiin yaa rasuul allah yaa nabiy allah ma jirto wakti qayluulasho weeyo nebiga waa hurdadii duhurka waxoogaa inuu indha guduudsado ugu talagalay waxoogaa nasta maanta o dhan oo hawl ku jiray intaas dad qaabilayo u jeedaa ayib nebiga usoo baxay calayhi salaatu wasalaam markuu usoo baxay niman carbeed oo faanka iyo waxaa la weyn yahay gabaygay ahaayeen haddayna yimaadeen waa wafdi waxay yidhaahdeen noo soo bax oo annaga ammaanteennana waxa weeye waa qurux caydeennana waa foolxumo qofkaan cayna way ku dhegi markaasuu yidhi been baad sheegteen alle ammaantiisa unbaa qurux ah cayda ilaahay baana foolxumo ah wuxuu caayo
kadib intaa maysan dhaafine waxay yidhaahdeen nin bay istaajiyeen wafdigooda ka mid ah hebelow istaag nin dhalinyaro ah oo khatiib mufawaho ahoo maxaa la yidhaahdaa codkar ah markaas yidhahdeen kasii daa markaasuu bahal khudba naari ah buu tuuray carabtuna fasaaxada iyo gabayga iyo ujeedaa balaaqada iyo macna u lahayd waana mucjizada dee ay nebiga la siiyeyna balaaqadaasay ahayd markay dhammeeyeen uu nebiga wuxuu ku yidhi qum yaa thaabit ibni qays ninkii hadda aan soo tilmaamaynay saxaabigii jannada loogu bishaareeyey oo khatiibka ah buu yidhi istaag khudbe adigana mase toodii meel cidlaa bay noqotay khudbo ka cajab badan ayuu thaabit ka sii daayey nimankii dhakafaar iyo yaab baa ka soo haray haddana nin kale kiciyeenoo gabayaa waxay dhaheen bal gabayga aan ku dayno nin kale yidhahda haye gabay ka sii daa shicir iyo gabay buu ka sii daayey markii uu bogtay buu nebiga wuxuu kiciyey xasaan ibni thaabit radia allahu canhu xasaanna waa gebiyey waruuxu lqudus macak waa tii dee malku jibriil baa ayidaya waa shaacirkii islaamka mase haddana afkii baa juuqda gabay ka khatarsan goodi baa meesha ka soo baxay markaasay isdhiibeen oo yidhahdeen wallaahi waxaa weeye laa gabay walaa khudbad waa nooga fiican tihiin markaas wey marka ay soo degayso oo la leeyahay ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraat kuwa kuu dhawaaqaya kuu yeeraya adiga guryaha aad degan tahay gadaashoodana kaaga dhawaaqaya siday u badan yihiin akharuhum laa yacqiluun kuwa caqlile ma aha qur-aanka eeg insaafkiisa muusan dhihin jamiicuhum wafdigii oo dhan wainamaa waxaa laga cabiray akharuhum badankooda dad caqlile baa ku jiro dad xukamaa ku jiro ummadoo dhanna laiskuma wada qaado lidaalika waad la yaabaysa dadka qaarkood markii ay wax samaynayaan reer dhan iyo deegaan dhan iyo qabaa'il dhan iyo tuulo dhan iyo magaalo dhan iyo ummad dhan ba waxaa laga yaabaa inuu wax wada saaro eed ama ceeb ama balaayo uu ku wada tuuro lagana yaabo markaa qof ama laba qof baa khalad ka galay qur-aanka marka manhajkiisu waa insaafka iyo cadaaladdo akharuhum buu ka cabiray badankooda laa yacqiluun halkaa waxaa ku jira walaalayaal qadiyo kaloo muhiim ahoo caqli la-aan mahayn nimanka laakiin caqligu waa noocyo badan yahay caqligii ta'diibiga iyo adabta bay waayeen caqligii adabta baa nimankaa ka lumay waa nimankaa gabyaya ee balaaqada iyo fasaaxada leh cilmiga ilaahay siiyey hadda zamankan theory ama nadariye waxaa jirto gardner nin la yidhaahdo uu leeyahay tacliinta iyo waxbarashada loo adeegsadaa waxaa la yidhahdaa aldakaa'aat almutacadida nadariyat multiple intelligences caqliga kala duwan caqliguu qaybiye wuxuu yidhi caqligu hal xaba ma aha uu qaybsamaa caqli waxaa jiro linguistic intelligence aldhakaa allugawi yacni caqli luqadda dad soomaali arag luqadaha ku fiican oo luqaddu qaadaba ka soo laacayo waxaa ka mid ahaa zayd ibni thaabit ee ku bartay yahuudiyada 12 beri buu ku bartay cibraani farisiyada iyo xabashigana sidoo kale 12 beri buu ku bartay caqli wuxuu ahaa lugawi oo wuxuu lahaa cajiiba wad sportsiga wuxuu ku daray inuu caqliga ka mid yahay meeshaan usoo socdo waxaa weeyey emotional intelligence الذكاء العاطفي وهذا ونظريه للدراسيه ومحي تهي عقليga waxaa kamid ah midka emotionka iyo caatifada leh oo dad isku wada shada leh wana mid nabiga lagu yiri calayhi salatu wasalaam fabima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هدات ككنان لهيد وقلفسنان لهيد dadku waa ka kala yaaci lahaayeen فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر اسكعفي وما حيسك سامح ودبع سنو نبي قال له عليه الصلاة والسلام ولذلك هل كإشارة وحكجرت وأكثرهم لا يعقلون ورئن أن أباهنهي احترامك يا آدابك إيو ضد اسكو وذا الشذا إيو كان وين إيو كان ير إيو رج إيو ضمر إيو قلوا البسيل ولا تعاملي ليهن سيد أمد للسجو وذا جرو أرنك فهمه قرآنك وحب حنيا وإشارات ومنهج قرآني وحوي عاطفة مركز لغا شيكيني وجداني جنا وحوي الرحمة ده ما قد جاري قرآن كقصة عرض تعامل ككل دوان صورتنا أي كهليس كلها وحوي وعاطفة الرمى اجتماعي لغا هليا إن دتكو اسكسو قاده بوسك أديك الجوج لهيد أديك مجي عليك إن حمان لغو سمايو
magaca xun in lagu bixiyo, si xun in lagugu dhawaaqo, in ixtiraamkaagii iyo qiimayntaadii iyo sharaftaadii in meel looga dhaco, intaba ma ogolid. soo ma jeed. walidaalika waa tii nabigu u dhahay calayhi salaatu wasalaam, qofkii raba an ta'tihi maniyatuh, inuu qofkii naarta in laga dheereeyo jannana la geliyo, geerida ha u timaado isagoo alla rumaysan, waxaa weeye dadkana ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay in lagula dhaqmo. hadihi alcaatifa, yacni in aad dadka kula dhaqanto wixii adiga aad jeclaan lahayd in lagula dhaqmo. marka wa akharuhum laa yacqiluun, badankoodu markaasi caqli ma laha. walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim, hadday sabri lahaayeen, gegsan lahaayeen, dulqaadan lahaayeen ilaa intaad uga soo baxayso, lakaana khayran lahum, saasa u fiicnaan lahayd. halkaa waxaa la tilmaamayaa iyaduna waxaa ku jiro tawjiih kale oo qofku markuu daalan yahay, marka uu mashquulsan yahay, marka uu kuusan firaaqo kuu haynin, waktiga ha ku dhibin. maxaa yeelay waxaa ka dhalanayso wixii aad raadinaysayna si habsami oo fiican in lagugu qaban waayo, danahaagi inay kuu hagaagi waayaan, in qofkani mashquulsan, in isagoo aan is ogeyn qaab kaloo cunfila inuu kuula dhaqmo, waxyaalo badan baa ka dhici kara. walidaalika waa tan la yidhi man istacjala bishayin qabla awaani cuuqiba bixirmaanih, haddaad waxaad degdegsato isagoo waktigiisii aan la gaarin, in dee lagaa xirmaaniya ayaa ka dhalanayso. marka maxaa la rabaa qofka inuusan wixii ka hor dhicin. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray waktiga wuu dooran jiray. kaana yatakhawaluna bilmawcida khashyata saama, xataa wacdiga iyo waanada wuu la eegan jiray si aanan u daalin. wuxuu la eegan jiray waktiga uu rabo saxaabadooda qaarkood inuu masaj iyo risaale iyo dhambaal uu siiyo, waktiga safarkoo kale isagoo gaadiid ay la saarayeen, kuntu radiifa nabiyi, markaasuu wuxuu yidhi yaa ghulaam ixfad illaha. ogow waa waktiga taxayina alfuras walwaqti baa la yidhaahdaa, waktiga inaad beegsato oo aad eegto waktigeebaa ku habboon qofkan inaad danahaaga ka dhammaysato. waxaa la mid ah hooyada guriga markay rabto inay wax dhammaysato, si degan odaga isagoo oo waxaa weeye rafaadsan oo kadeedan, hadday ay damcdo inay wax uga dhammaysato, reerka halkaa waa isqabanaya. laakiin xilli uu degan yahay, uu faraxsan yahay, xaaladdu caysho milix tahay, wax walba haddii odaga loo hosgeliyo waa laga daadsan, wax walbana waa laga feyrmayn. ya waatuu nabiga uu yidhi ma arag waxaa weeye qolo idinka caqli yar haddana idinka caqli badan, oo ninka ugu caqliga badan qalbigiisa ka qaadasho og. gambar yarba intay ugu fadhiisato ayay waxaa weeye ka dhammaysanaysaa. taa way midda marka nala amrayo, waxaa weeye walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran. sabar iyo dulqaad baa wax lagu gaaraa. sidaasi la mida odagana waxaa weeye markuu rabo inuu wadaadda wax ka dhammaysto, waktiga ay waxaa weeye ay kabashkabayshaynayso, ay faraxsan tahayoo wax badan waxaa weeye laga dhaadhicin karo. ilmuhuna waa sidaa, wakti waxaa jira uu kuu soo jeedo. waktiyada hadda xilli dalxiisya iyo xilli fasaxyaa lagu jiraa, waa waktiyada uu nebiga ka faa'iidaysan jiray, oo loo baahaya ilmeheenna inaan gelino wax badan baan gelin karnaa. marka ilmuhuna waa sidaasoo kale, hooyooyinkii aabbayaashii wax badana ka dhammaysan kartaa, laakiin haddii la fahmo fursadda lagu soo beegayo, jaanis fiican haddaad kusoo beegtid, markaas wax walba waa helaysaa. laakiin isaga oo iska mashquulsan hooyo ama aabbo, waxaa laga yaabaa inaan wixii la helin. waxaan rabaa inaan ku khatimo walaalayaal aayadahan maqtacan aladab maca allah wa maca rasuulih, kadib mu'miniintaan geli doonaa. aayadda afaraad, ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraat, xujuraadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. aaway maalka waa noo shaqeynaya soo ma, mobilkiina rabaa inaad furtaan. waxaan rabaa qof iskaabula ah oo dalkan joogo, guri haddii damco inuu dego, guriga uu degayo masaaxadiisa iyo spacekiisa meeqa mitir square way taqriiban. qof walba siday la tahay soo qoro. waddankan hal qof guriga uu dego mitir squarekiisa intuu la egyahay? waa hal qof singala. qof singala guriga uu dego mitir squareka maxaad isleedihi? iga boobsiya, waktigaa nagu socdaya, taleefanada raggii haystay. ya 30 ilaa 40 soo qoro. 30 qofkii ha ii soo qoro, ha soo qoro 40
waa la soo qorayso 40 meter square 36 meter square 40 square 25 ilaa 30 meter square soo ma jeedid okay that's waxa weeye waa single-ka okay laba qof aan niraahno ilmo ma haystaan laba qof oo isqabo meter square ka ay degi karaan xagee meeqa wey so iyadana soo qoraan aragna let's see 50 meter square أو أصدق فلان لحدا يشان بقول متر سكوير لحدا متر سكوير بلو بدن يدمده لحدا كنتن يشان طيب لحدا يشان أديك اللحدا يشان اللي بطي لا وقف مركزيين صح طيب أن أجنو حجرات النبي عليه الصلاة والسلام هرتوا معلم تاريخي معالم تاريخ الإسلام ككم دوا sagaal qol bay ahaayeen isku mar lama dhisin waxa ugu horeeyay gurigii Sawda binti Zam'a radiyallahu anha wa ardaha ba ugu horeysay laano Khadija markay dhimatay zawjadiisii Sawda ay noqotay waxa ku xogay Aisha nabiga markuu soo hijrooday oo Madiina iimaanayna labadaas dumarku qabay Sawda ummul mu'miniin Sawda iyo ummul mu'miniin Aisha labadooda guri baa marka la dhisay kadib waxa xigay Hafsa binti Umar Zainab binti Khuzayma Ramla binti Abi Sufyan Zainab binti Jahsh Juwayriya binti al-Harith Safiya binti Huyay ibn Akhtab dhammaantoodna waxay ku yaaleen adanku wala joogamiya way noo aad insha Allah بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم طيب sagaalka guri xujra waxa la yiraahdaa guriga marka uu dhulka ku yaalo baynama ghurfa waxa la yiraahdaa guriga markuu meel sare oo dabaq uu ku yaalo ولذلك في القرآن waxaad arkaysaa markii jannada laga sheekeynayo wahum fil ghurufati آمنون صماها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا غرفة مركة وماشى سروا بينما حجرة ودلك حنا اللوجو بحيي وحكشرية هاي دتك بنانك كأها إني دي صادح قالنا أما أركان واحد جدها كل حجرة حجرة أساس اللوجو ما العالم مركة جريو وذا دلك كل سنة وأن دبق أهين بيهاين جريها واحد كسم إسناين روبو يلامها جيت تمرتك جيت كتمرتا لاميه سجريد النخلة يضربي أهاي سيدا مساجد كي سبقوها النبي عليه الصلاة والسلام قريهاس مساحديسة هذا واحد رادين دل كان قف كسينجل كأه 40 متر سكوير فلا يرى بدنا إنه محالي ردا إلى صدن يشن إنه يهي النبي عليه الصلاة والسلام حجرات كيسو حي أهايين أفر يبر متر أفر يبر ديررة يبلع أفر
marka la isku dhufto maxaa soo baxaya mitir square 13 rafli soomaa taqriiban 13 mitir square buu xujrada ahayd dherarkuna 2 mitir ilaa 2 mitir iyo bar وهلك حسن البصري رضي الله عنه وليه وان سو غاري وانا غلاي marka gacantaydan ku taabanayay buu leeyahay saqafka wa xujuraadka nabiga kaleey salaatu wasalaam alaab maxaa u yaalay darin buu ahaa gogashu markay ku sawirmato intuu Umar uu naxo u dhihi jiray boqoradina nicmadaasi ku jiraan adigana waxa weeye galahan iyo darintan ba waxa weeye feerahaagi ku sawirmatay وغوريغاس وغوريغي وحيغا uu ku soo degay malaku jibriil intuu ugu yimaado وحيغا ku soo dejinay وغوريغا Abu Bakar iyo Umar iyo markii wasaradiisa meesha uu kala tashanay وهلك dawladiisi uu ka maamulay ولذلك inaag bari bay masaajidka ka xigeen Umar radiyallahu anhu waqtigiisa masaajidka nabiga waa la waasiciyay waxa lagu sameeyay waasicin laakiin Umar radiyallahu anhu wuxuu ahaa kana faqihan waasicinta dhinaca hore ee qiblada u waasiciyay masaajidka dhinaca qiblada buu u waasiciyay walidalika dad aragtay qofkii tagay minbarkii hore nabiga waxa weeye waa iyo minbarka hadda cusub ay kala horeeyaan xagaas hore u waasiciyay wuxuu ka cararayay dhinacyada gaar ahaan dhinacan bari hadduu damco inuu u waasiciyo inuu galo xujuraadkii waxa yimid waqtigii amawiyiinta al-Walid ibn Abd al-Malik saayidka marda la damcay in la waasiciyo markii la damcay in la waasiciyo ayuu dhinaci bari buu u waasiciyay dhinaci barina waxa ku yaara qololkii nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu go'aana uu qaatay in uu dhammaan burburiyo ilaa guriga Aisha radiyallahu anha oo maxaa looga tagay laana waxa ku aasan nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar iyo Umar maalintaasi kutubu taariikh waxay leeyihiin lama arag maalin ay ka oohin badnaayeen dadku maalinka way ku saamoobeen saameyn bayna lahayd guriyihii nabiga kaleey salaatu wasalaam walidaalika waxay yiraahdeen hadal qabsi aha layta alwalida taraka allamu iska daayo walido oo maxaa dhacay si ay dadku ugu cibra qaataan noloshii nabiga kaleey salaatu wasalaam siday ahayd 13 mitir square oo ahadiis sida ku soo aroortay Aisha radiyallahu anha way horbabacsaneed oo hortiisay jiiftay waana tukanay nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu sujuudana uu qandhuufanayay uu qanjaruufanayay bimaana lugteedu ku dhagayay si ay lugaha u laabato يعني مساحدي عريريسay u tahay guriga alaabtii agabkii wix yar yara u baahnaa markii la dhigo adawaadkii loo baahnaa masaaxada weyn kama soo baxaysaba مع أنه نبي قال الدوريسية الدنيا إن ونقضه نبيا ملكا نبي بقرة إيه النبي عبدنا إنه نقضه وحود دورتي الضون مضو دورتي وتنربي أوليه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ربي وحبكم معها قصريه يوبيال هوس مرية إنه حوي أصميه لكن الدنيا دني أيان معنا أقفدين ولذلك ولا ليال نعمت أن هيسنو إلهي أنا وما هذينه دتك أنت واشيء جنايا وحلاقي يا أبا جوري قد كجرته ومتر سكوير كيسو لبجر سد حجر أفر جر شنجر لقي يا أبا كان نبي قود الجنا إنه كوي هاي إنها كشيء جنايس الدنيا دي قدام بهدي وحكة لجوسي لجوسي وينيه عريري قد كجرته إذن سعادة ولا ليال معها حول معها مال معها هنتي معها الدنيا معها سعادة وقلبك طمأنينة الراحة النفسية وقلبك ولذلك أن كعب رقاضنه حجرات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينولشي سيدي أهيد إنك سيدان أنه الله يوليب الشكر لقد لأنت نبي قال لقيه برري جري دلدلاعي جري مركز ليه جري أفلا أكون عبدا شكورا الضون ما هدنا قميانا النقونين سو مجدد هل مالين بي انتي وحعنان او مرتقاد انتي لو سميو ايو نبي كدو الاخرين الصحابه ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم نعمداس وان لي ويدينيا سامين بي كو سمينيسي انغنا وحا سو برواقه بان مانتا هيسنا هدنا كما ما هدنقينا الهي دينك هينا فهنسيو كوي كو دقما او كو هنونا او خاتمدودا لغا دغا الهي نغا دغو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خير موسى عبدوي. جزاك الله خير دكتور عبدوي واحسن الله اليك.
درسي وجود ومن هذا توقع صلاة مكان دكان كبعد توقع بيدونا وإنه تضبط إن شاء الله هذا إلى السلام عليكم ورحمة الله. Pelutna. Marisa. Miguel do. halkiis iska yalo Safka dibna uma inag. ana waxaan ugu wacay Hay. Safka la goyn. safka kala ama Safka ama goyn. Ha safka goyn. Ah, هنا مريح لانجل. maro ugu safka